Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cuntada ilmaha afarta bil ilaa iyo maxaa la dhahaa sanad ay ka gaarayaan jadwalkooda cuntada ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo sar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddaa hore noola joogto oo familka ka mid tahayna like noo saar asxaabtaadan usii share gareysii hooyooyin badan ay kaga faa'iideystaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cuntada ilmaha afarta sano ilaa iyo sanadka jiro ayaan kaga hadli doonaa maxaa la siiyaa maxaasan la siinin iyo cunuga cuntadiisa si loo karnaa horta inta badan hooyooyinka Soomaalida maasha Allah way dadaalaan oo cunuga markuu 4 bil soo gaaro waxay isku dayaan in cunuga maxaa la wax siiyaan laakiin qaabkii xooga waa qaab oo laga qurux badan yahay oo cunuga in suugada cida markay karsanayso oo kale xabad baradho ee loogu daro ama jab looga soo bixiyo kale maxaa la suugo oo saliid lagu daro cusbo lagu daro xawaajiye laga yaabo in lagu daro hooyada ugu fiican waxa laga yaabo inta xawaajiyada ku jiran uga bixiso laakiin cunto maxaa la dhahaa dad waaweyn loo karinayo saliid loo cusbo leh cunug yar oo 4 bil jiro oo waliba sanadka yar 4 bil xataa iska diinta cunug sanadka yar yahay ma xamili kariyo marka qaab loo kariyo leedahay cuntooyinkooda insha Allah muuqaalka taas ayaan kaga hadli doonaa soo dhawaada ilmaha horta cuntooyinkooda saddex ayaa loo kala qaadaa ilmaha markii waa weyn yihiin oo kale oo cunuga markuu 6 bil kor u dhaafo kale qayb afraad soo gasho laakiin hadda markii cunuga uu ka yar yahay oo kale 6 bil oo 4 bil ay dhacdeen cuntada loogu bilaabo horta cunuga kooba inuu qoorta cishan karaa oo yaqaan inuu qoorta cishto cuntada marka cunaysid inuu cunuga hami u leeyahay inuu cuntada cuno cunuga aan qoorta cishan karin waxba lama siin karo waadi cunug laakiin qoortiisa uu cishan karaa aragtid oo markaasaan uu fadhiisi sidoo kale qabatid oo qoortiisa aysan waxba aysan nuxnuxsanaynin oo taagan tahay markaas cunuga u bilaabi kartaa 4 bil okay marka cunuga quraacdo kale waxa wanaagsan in karbohaydrayt ay ugu dhigtid oo kale maxaa la dhahaa qaadadana ay ugu dhigtid oo kale waxyaalaha oo borotiinadii waxaas leh cashadana khudaar iyo faakiha bis ay ugu dhigtid marka ilmaha markaas quraacda uu sameeyay sidoo kale waxa wanaagsan cunuga in cuntadiisa gooni loogu kariyo dadka waaweyn aan loogu dhex karin maadaama dadka waaweyn saliid iyo cusbo iyo waxyaalaha carcarfin ah ee cuntooyinkooda ay ku jirto waxyaalo la shiilayo dadka badan ay isticmaalaan marka cunuga cuntadiisa wax la shiilayo ama wax saliid loo dhaweeyo ama cusbo loo dhaweynaysan naqan ayaa wanaagsan caadi ahaan cunuga marka cunto u bilaabaysid marka u horeysan waxa wanaagsan in hal qayb ugu bilaawdid kadibna cunuga markuu halka qayb saddex maalin aasiisid oo la qabsado qaybta labaad haddana ugu dirtid oo kale oo laba xabo markuu horeyso cunuga aadan ugu wada bilaabin marka cunuga marka cunto u bilaabay sidoo kale in maalintii koomas ugu bilaawda fiican cunuga inuu kula qabsado marka aragtidna aad ugu dartid shoofaan iyo moos inaad ugu dartid oo kale ama inaad ugu dartid oo kale bariis iyo maxaa la dhahaa karooto aad ugu dartid oo kale ama bariis iyo bocor aad ugu dartid oo kale marka bariiska ama shoofaanta oo kale marka karinaysid biyo ku karinay biyo dabka la saaray shoofan waxa la lahaa geedkan qofkan aqoon gasacmanka mashaaridan yar yarta ah oo gasacmanka ku jirto oo diyaarsan ala lahaa marka mashaaridaas oo kale cunuga inaad dabka u saartid biyo la saartid markay bislaato oo kale maxaa la waxay roomos ay antaale garisid qalaadad ay galisid oo kale ashidid hadii maxaa la lahaa bariis iyo karooto asiinay sidoo kale ayadana in bariiska biyo lagu kariyo oo cusbo iyo saliid aan loo dhaweynin asagii karootadana dab yariis oo daciif lagu kariyo si nafaqada aysan ugu dhiman hadhowti markay bislaadaan qalaadada inta galisid ashidid oo kale cunuga saas oo ku cabo hadii kalena maxaa la lahaa oo cunugaado kale macaan u naqan hadii cunuga uu jecleen oo kale waxaas shoofaanta inta biyo ku karisada caanaha caadiga hadii caana asiisidoo kale caanihiisa ugu dari kartaa marka saas qurux badan oo cunuga in cuntadiisa iyo tan dadka waaweyn aan la isku darin ee laba ay kala ahaadaan hadii marka jadwalka qaadada oo kale cunuga oo kale waxa wanaagsan maadaama saaka karbohaydrayt asiisa inaan waxba karbohaydrayt kale aadan ku celin oo kale oo maxaa la dhahaa asiisid oo kale ukunta jaalaheeda oo kale inaa ukunta inta soo karsid jaalaheeda asiisid inaan baradho biyo lagu kariyo qaadada waxa wanaagsan in maxaa la lahaa ukun inta karisid jaaladeeda aad ka siisid cunuga ama baradho inta biyo ku kariso kale asaas ku siisaa maxaa la ama beerka doorada kale da u helaysid ama beerka shimbiraha kale asiisa okay way ayadan cashada marka maadaama cunug yar yahay uu u baahan yahay kale casho wax adag noosan qaadan karin waxa wanaagsan in qudaar looga dhigo sida tufaax la kariyo kale ama bocor guduud ah kariso kale ama maxaa la lahaa wax jilcan oo qudaar ah oo cunuga u karaysa in asaas casho ugu dhigta ayaa qurux badan marka cunuga marka uu 6 bil uu kor u dhaafo oo maxaa la lahaa oo intaas waxa u soo bilowday markuu 4 bil jiray cunuga markuu bisha 6aad dhameysto cunuga markaas waxa ugu darin kartaa waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida yogurtka
waxaa lagu dari karaa yoogadka ama maxaa la dhahaa waxaa ugu dari kartaa subag oo kale, markaa subaga xoolaha oo kale oo bilaabi kartaa. Marka haddii cunuga maalmaha ugu horey uu diido kale inuu wax cuno kale oo maxaa la dhahaa wixii maadaama ay ku cusub yihiin asagana yar uu diidan yahay oo kale waxaa samayn kartaa in maxaa la dhahaa maanta markaa siiso uu ka diido kale iska dhaaftaa beri aa ku celisaa. Hadduu diido iska diisaa maalinta kale aa ku celisaa waxba aadan khasbin. Marka haddii aa ku celiso maalinta dambe waxay u badan tahay inuu kaa qaato. Cunuga haddii mar uu waxa uu ka jeestana waxaa qurux badan in aan lagu qasbin cunuga la'aan haddii aad ku qasabtid waxaa laga yaabaa in uu wixii uu naco ayada dhanbo. Marka wixii haddii uu mar inuu kasii jeesto aa aragtid maxaa la dhahaa ha ku qasbin, laakiin markii uu waxan uusan aqoon uu rabo in aa rabtid inaad bartid maanta siini hadduu diido ma qasbaysid waa dhaafay beri haddana u sameyn haddana waa siini haddii uu diido ma qasbaysid. Marka markuu shil dhadhamiyo oo maanta dhadhamiyo uu beri dhadhamiyo khasab maalinta afraad wuu kaa qaadanaa. Laakiin markii cunuga uu inaad cuntada ku sii qasbin si uu u nicin inuu cunto aasiisin in uusan kaaga diidin iyo maxaa la dhahaa cuntadii in uu rabin haddii aragtid inaadan ku qasbin. Markuu barta kadib haddii aragtid inaad markuu kaa barta kadib waa haddii aad isku daydo inaad siisid aa aragtid inuusan rabin uusan qaadanaynin fadlan ha qasbin isaga dhaaf kuwa kale sii la'aan haddii aad ku qasabtid wuxuu arki doonaa in hadda kadib markii aa cunto u keenta uu diido uu maxaa la dhahaa diiditaankaas ee dabeecad u noqotaa ayay u badan tahay. Marka intaasaan kaga bixina haddii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar kambalelka furo hadaa hore noo joogtaan like noo saar asxaabtaadana usii share gareey soo dhawaada.